runtii sa arkayseen baa waxaanu dhagax dhignay bangigii cusbaa ee laanta Boosaaso ee dawladda Puntland say mas'uuliyiinta kala sheegeen buu arkayseen oo bangiga Puntland wax badan oo talaabo horumar buu wadaa marba meesha joogtana maanta waxa weeye inay dhaanto oo meel ka fiican ay marayso idin muuqataa bangiga Puntland inta badan gobolada uu ku yaala branches xeerku waa isku Garowe ismaasha cusub hadda aragteen oo soo dayay noo sheegay saddex dhisme ba hadda gacanta laga jaray kan ku jiro meel kastana waxa soo dayactir iyo meel ku haboon min Caluula ilaa Baran Gaalkacyo ilaa degmooyinka laamiga ah maanta waxa keenaysaa adeegii computerizerka ahaa waxa rabaa bangigu inuu tayeeyo dadka iyo meesha lagu shaqeyn labadaba hadday noqoto xagga qalabka hadday noqoto xagga farsamada hadday noqoto dadka iyo hadday noqoto meesha lagu shaqeynayo waa dhismayaashii runtii dhismaha bangiga Boosaaso maantay ahmiyadu ugu fadhiyaa gobolka bari su'aalaha ugu badan oo dadka la weydiiyaan waxa kamid ah su'aalaha uu ku sheegay gobolka bari maxaa ama dadku ay yiraahdaan maxaa wax lagu qaban waayay wax badan baa loo qabtay gobolka runtii maanta waxa faa'iido inoogu filan oo inaan soo koobi karin wax qabadka la qabtay wadooyinka maanta ilaa iyo meesha la yiraahdo ilaa iyo Gaalkacyo ilaa Boosaaso waxa filan bishan haday dhamaato aan bisha ku xigta ilaan gaarigu meel u istaago laga heli doono insha Allah taala maanta marka ujeedada bangiga waxa weeye in la hormariyo la casriyeeyo la tayeeyo bangiga laanta Boosaaso oo ah halbowlaha meesha dhaqaalaha waxaan rajaynaynaa bangigaas inuu noqdo bangi ruux badan sida bangiyada aan ka dhisnay Gaalkacyo iyo Garowe kale insha Allah taala waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha bangiga Boosaaso kuwa Garowe kuwa Gaalkacyo kuwa Qarood lama hodhan baraan sababta waxa weeye ummadda shaqeynaysa oo anta ummadda haysa oo shaqeynaysa waliba waxa weeye hadba la change gareeyay hab cusub oo casriyaysan oo soconayo runtii waxay turjumaysaa horumarka iyo dawladnimada Puntland ku talaabsanayso marmarka dambeeya runtii shaqaaluhu waxay ku qancaan ama qofka soo meel jooga bay'adda ku shaqeynayo haday tahay meel fiican oo qurux badan hatta hadduu mushaarku shari yahay waxa weeye si fiican bay muxuu ahay u qanacsan yihiin taas waa mid ah bangiga Boosaaso runtii shaqooyin badan buu hadda u baahan yahay insha Allah taala maantana waxa wada jooga mas'uuliyiintii bangiga dawladda Puntland baa jooga dhamaantood gudoomiye agaasimo guud dawlad ku xigeen iyo mas'uuliyiinta gobolka oo muxuu ahay bangiga oo dhan waa joogaaniin waxaan meesha la isugu yimid waxa weeye in muxuu ahay bangigan la kiciyo waxyaabaha ka dhiman hadday noqoto xagga farsamo hadday noqoto muxuu ahay xagga muxuu ahay qalabayn hadday noqoto muxuu ahay xagga dhisme in laga wada caawiyo ilaahay mahadiis weeye bangiyaasheenu hadda ka warbaan waxaan ka qoray research markaasaan bangiyada Afrika baan soo qaatay waxa la comment gareeyay bangiga ugu qurux badan inuu noqday muxuu ahay iska daa Soomaaliya inuu noqday bangigeena Garowe runtii waxay noqotay wax laga comment laga bixiyay ma waxa deer magana la yeeliyay karo maaha intaan baa lagu diray marka researchkii waxa soo koobi gareysay baa muxuu ahay bangi ku yaala Mareykanka ama Canada marka waxaan qofka waxa ugu filan baa tusaale meesha ku yaalo iyo hadii macnaha qofka raba marka runtii saxaafadda waxaan leenahay waa mahadsan yihiin aad baan ugu bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa saxaafadda in mar kastaba dhanka wanaagsan loo adeegsado iyaga ayaa meel kasta gaarsiiyay muhaabaalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladda Puntland siyaasadeeda oo waxa weeye horumar tayo iyo tigsi inay muxuu ahay maantay tayadii iyo tigsiga labadaba laga dhabaynayo oo maanta waxa weeye la rabo in shaqaale tayaysan tigsi horumarineed muxuu ahay la baalkayo waxa jira hadda ka hor waxaan tagnay bangiga Garacad oo soo dhagax dhignay wasaaradda badan oo dawladda ah saa arkayseen ayaa soo dhagax dhigay bangigu kamid ahaa maaliyaddu kamid ahayd dekadu kamid ahaayeen qoladan muxuu ahay immigrationadu kamid ahaayeen boolis kamid ahaa macnaha fiditaanka dawladnimo wadadii baa socota fiditaanka dawladnimo ay u fidayso dhinaca meelaha magaranaysa xogaa fog taa ruuxdeedu waxay ku tusaysaa horumarka muxuu ahay baalkii sidoo kale bangiga muxuu ahay Turdibi oo ku yaala Galdogob isagana qorshe waxa noogu jira inaanu isagana hadda soo furo oo waxa weeye meeshan u soo aastaynay meesha waa noo aastaysan tahay laga dhisi lahaa laakiin isagana insha Allah taala soo furo marka hore waan rabnaa marka marba waxa weeye balan ba noogu jira qorshayaashii noogu jiraan muxuu ahay baalka arrinta Garacad waa sheegnay oo waxa weeye
bangi waa la dhex dhigay wasaarada badan oo tiima baa tegay oo bangi muxuu ahay mas'uuliyiintu ka mid ahaayeen meeshii waa la soo qabtay waxaan rajaynaynaa markii dekeddaasi furanto ka hor in bangi iyo wasaaradii dowladda furan kulli ay ka howlgalaan baan rajaynaynaa dhulkii dowladdana ay ku shaqayn lahayn waa la siiyey qolo kastana meesha way dhisanaysaa waa la ballan qaaday taasina taa weeye shaqaalaha bangiga iyo madaxda mas'uuliyiinta gudoomiyaha iyo agaasimaha guud iyo maamulayaasha laamaha iyo dhammaan shaqaalaha bangiga dowladda Puntland waxaan ugu mahadcelinayaa sidii wanaagga lahayd kartida badan iskaashiga leh aqoontana ay go'an tahay inay macnaha meel bilic leh bangi horumarsan oo la tartami kara bangiyaasha caalamka ee muxuu ahay shaqadooda geliyaanin wala socotaan oo shaqaalaha waxaan u wadnaa tayeyn baan u wadnaa tababar la siiyaa waxa weeye systemka computerized-ka lagu siiyaa kulligood qof kasta oo shaqaalaha oo meel jooga oo shaqaalaha bangiga kamid ah waxa la waajib gareeyay sanadka qorshaha ku jira inuu yaqaano computerka inuu yaqaano ku shaqeyn karo xisaabaadka iyo kale waxa weeye hadda la socotaan labaas waa saddex asbuuc ka cor garow wax ka furmay tababarkaas shaqaalaha IT lagu tababarayay ilaa 20 qof oo tababarka loo furay muxuu ahay garow asbuuc dheedan loo soo xiray oo ay soo xirtay agaasimaha muxuu ahay agaasimaha qoyanka runtii halkan wax ka bilaabi doonaa waxaan rabnaa dad wada socda isku aqoon ah meel wada jeeda la aamini karo ilaa maadi waxa bangiga Puntland ilaa yawman hada ilaa inta la asaasay inaan ceeb ka iman shaqaalihiisa iyo mas'uuliyiintiisa inaan ceeb ka iman shaqada waxa weeye in muxuu ahay la qabto lagu dhiirado maadeeda waxa leh dawladda mas'uuliyiinta markaa joogta madaxweynaha markaa jooga haddana ka go'nayn in waxa weeye hawsha la qabto waxa weeye lama qaban karo laakiin haddii hogaamiyaha markaa meesha jooga uu aaminsan yahay wax la qabto ay ka go'an tahay wax la qabto kuwa ka hoosina ku dhiiranayaan uga mahadcelinayna madaxweynaha Puntland access-ka iyo awoodda uu noo siiyay in bangiga Puntland ay dhismaaneen oo noqdaan kuwa casriyaysan iyo sidoo kale wasaaradaha kale oo muxuu ahay dawladda sidoo kale institution-ka soo kamid ah dawladda Puntland oo ay ka socoto horumar waxa weeye waa wax dhiirigelin ah oo laga helay muxuu ahay mas'uulka markaa jooga waxa leenahay aakhirkii madrid Puntland waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay amni waxay u baahan tahay isku xiraansho waxay u baahan tahay isku tashi waxaan ugu baaqayaa amniga in laga shaqeeyo in la isku xiraado khilaafka in la yareeyo inaan waxa weeye qof waliba mas'uuliyadda saaran ay noqoto mid isaga saaran aan cid loogu danayn waxa ogaataan in kursigu ama dawladnimadu ayaa umada deeqda waxa weeye dawladdu waa koomba yar oo sida habar ku qurxin ariga miyiga marka la joogo kala taa hadii habar kasta intay markay ku muraasoo tuurto dii waxa weeye wax noqonaysa koomba jaqaf oo miraysa laakiin hadii qof kasta marka uu quruxiisa ku dhamaysto meel saarsado way qurxunaanaysa ma dhamaanayso waxaan leeyahay reer Puntland waxa deeqa dawladnimada waxa deeqa amniga waxa jira wada jirka boosaaso waa magaalo ganacsi oo is wadi kartaa hadii hesho amni waxaan uga mahadcelinayaa runtii maantay waxaan ku qoslayaa maalin dad baa yiraahdeen boosaaso amni lagu qaban karo shirar lagu amni ma laha dadka war xumo tashiilka ah oo dalka waxaan ka sheegnaa waxaan leenahay waxa weeye runtii inaan loo jilcin dalku waa amni Puntland midnimadeeda iyo taladeeda iyo aqligeeda iyo meel socodkeeda iyo wixii dan waliba yaqaan sababtoo waxa la yiri waxa uu muusha u roon ayaa ilmaha u roon kulliga waxayna deeqa amni waxayna deeqa dawladnimo waxayna deeqa horumar waxayna deeqa inuu isku tashana assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh